qisas fara badan baa ilaahay quraanka inoogu sheegay qar boqortooy lagu ibtileeyay boqortinimadii la soo diristay diintooda kamay leexin waa nabi Suleymaan alayhi salaam qisadiisa akhriso hadaad leedahay anigu madax baan ahay oo zamanka ninka madaxu diinta islaamka inuu ku dhaqmo dadkiisana uu ku dhaqo way adag tahay hadaad leedahay nabiyullaahi Suleymaan alayhi salaam qisadiisa baa quraanku ku qeexay dhageyso akhriso oo culimada weydiiyay boqor afarteenina adduunka u soo talisay nin kamida ayuu ahaa waliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini'aadanka kaliya ay haystaan mulki rabbaani buu ahaa ilaahay baa siiyay oo waxa kamida mulkiga nabi Suleymaan khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa la hoos keenay loo sakhiray dabaysha ayaa loo sakhiray cafaaridiya jinka ayaa isaga u shaqeynaysay shayaatiinta ayaa aqaladana u dhisaysay badaha intay u dhaadhacaana jawaahirta iyo dhaymanka u soo saaraysay hadalka shimbiraha oo dhan buu nabi Suleymaan u yaqaanay وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها boqortooyada ilaa halka gaarsiisa maxaad u malayn quraan hadlaysa hadalkeegi la maqashiye war boqor nuucay adduunka ma jira ma soo maray may hadduu soo marayna waa Suleymaan alayhi salaam cid kale ma nabi Suleymaan nabigaas mulkiga inta la ilaahay siiyayna sa ilaahay taacadiisa ma dhaafin ilaahay dhikrigiisa ma halmaamin hal maalin kaliya quraanka ilaahay ku sheegay fi suurati as-saad wa ala farduhu aadu jecla طبعا fardahana waan jecelahay fi kulli zaman farduhu waa shay qaaliya fardihiisi ku gali jiray ayaa sida loo soo hormariyay baa leeydi saacadu ilaahay dhikrigiisa uu sameyn jiray wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyi wal ibkar saacadu haajira ilaahay la munaajodo waa galinka hore iyo galinka dambe weeyaan waa inuu qofka muuminka gartaa saacada waxa jira ilaahay uu noo jideeyo la doonayo inaan adduunyada inta ka imanno masaajida soo galno ilaahay u dhawaano ilaahay la munaajono saacadii dhikriga uu sameyn jiray rabbigi la munaajoon jiray ayaa fardihiisa sidaa loo soo hormariyay فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وكي لا قرآن كو شيء فرده بالهرمري وحوري فردها هذه هرمرسان وحي إيقام مشغوليين إلهي حسكي بيقام مشغوليين بيولي ذكري أن إلهي حسكيسا أن قلبك مركان ذكرنا أن كم عن سنة أي إيقام مشغوليين كل قود يسوع علي يقول يسوع علي كركا كوضا جرى وحلي وحي طاعد إلهي كم مشغولين نبيد وقورتك قوينيين إنك صلاة دان تكنيني إما سجار بالدكانة دين إنك مشغولين دكانة دين ولي ما بحنا نكيبا أبحيو أورانكر الدكان كاسمر اللي مركان صلاة دقلان كسهويا إلهي درتيبا أبحي مجرى ما دعي كرتا فرضه سي وكو حرقون جري waliba jihaadka uu ku gali jiray ayaa markii sida loo hormariyay waxay ka mashquuliyeen oo qalbigiisii ay ilowsiiyeen macaankii markuu ilaahay xasuusanay uu qalbiga ka macaansan jiray ilowsiiyeen markaa buu igu soo celiya ii soo celiyay buu oo maxaa dhacay soo celiya wala soo wada qabtay qoorta ka wada gooyay buu ilaahay bay iga mashquuliyeen daacadiisii marka haddaad madax tahayna madaxda waxa la doonayaa inay ku daydaan nabiyullaahi Suleymaan alayhi salaam mulkiga inta leegu haystay xaq ilaahayna uu ku gutay xaq ibn aadankana uu ku guto uu ku ilaaliyay baa leeydi xaq ilaahayna ma dayicin xaq ibn aadanku ay ku lahaayeen ma dayicin waxauna ka baxay adduunka isagoo nabi oo mursalo ilaahayna uu raali ka yahay aka quraanka ilaahay ku sheegay
istiqaama marka xal hadda dabaqad kasto muslimiinta kamida aad ku lug leedahay saadiinta ugu sugnaan lahayd daliil ba lagu hayaa daliil hadaad bukaana tahayna nabi ayuba u daliila nabi ayub 18 sano bukaana ha geed hoos jiifay marna ilaahay taacadiisa digrigiisa ma daynin malik nabi rasuula walla ikhtibaaray todobadii habloodu lahaa mar kaliya laga wada dilay oo nafta laga wada qabtay uska sabray todobadii wiil oo lahaana mar kaliya israaceen oo uska sabray baarihi iyo tijaaradii xooluhu lahaay oo dhan mar kaliya laga qaaday uska sabray markaas jirkiisi waliba xanuun lagu riday uska sabray xanuun nuuceeya gaadhay wala jirkii intuu dhamaaday harigaya lafahaas ku dhagan bas markaas wax ehela waxa uu soo hadhay xaaskiisii markaas qaraabadiisii ku yiraahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama anaku aan kaaga baxno may ana inaga fududay inaga tagay buuri ay tukubisay banaanka bay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ay culimada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tagaysay magaaladay u soo noqonayso dadkii u shaqeyn jirtay aqaladay ka shaqeyn jirtay leeydi wixii mushqaayad la soo siiyay intay soo ugu soo iibiso khubz ayay iyo idaam ayay markaa nabiga ugu keenay jirtay geedka hoostiisa markaas ay ku tiraada ayuubow xanuunkan halka ku gaarsiiyay in ummadii iyo dadkeeni ay banaanka inoo soo tuuraan nabi ducadiisa la aqbala ayaatahe ilaahay ma noo baridaha ka qaada xanuunkan oo dadka ku dhex noqonay markaa buu ku yiraahdaa 70 sano barwaaqo ku soo jirnay ma inta yar baan u adkeysan kara laanahay buu yiri barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysana ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacdo ayaa badan mid ka badan nicmada badan marka anbiyadu nicmaday eegeen mar walba dadna municimka marka way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abu xaaskiisa ku yiri 70 sano barwaaqo ku jirnay ba muddada yar baan u adkeysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalmaha kamida labadii dad isaga ugu dhaweeday qaraabadiisa ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yiri mid baa yiri marka hor u dhawaanay meeno xanuunkiisa inuu nagu soo tacaadiyaan ka baqaynaaye malaha dambi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaas marka nabi ayuub uu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurgurtay dadna meeshuu ku xaajoonay markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xaggaabuu uga dhaqaaqay halkaabuu markaa ku ducaystay baa la yidhi ducadiisana waa tan qur-aanka ilaahay noogu sheegay fi suurati al-anbiyaa wa ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya ad-durru wa anta arhamu raaximiin ayuub calayhi salaam rabbigiibuu u dhawaaqay oo rabbigiibuu la munaajoodo u qayla dhaan dirto markiiba wuxuu yidhi ilaahu aniga dhib baa isoo gaadho itaabatee adiguna kuwa naxariista ka ugu naxariis badan baa tahee ilaahu dhibka iga qaad buu yidhi ilaahay markiiba ducadiisa waa ka aqbalay baa la yidhi halkii uu joogay baa lagu yidhi lugtaada dhulka ku dhifo urkud birijlika 18 sano nin jiifay oo xanuunsanaa awoodda jirkiisa ku jirta ee dhulka markuu haraatiyay biyo uu kaga keeni karaa waa awoodee يعني أدقو أسبابتي لك هالي ويان أنا كابيها سو صارينه لقت هذا يرضى قاجي بس أسبابتن الدنيا ده نركينا أردن نظام كإلهي بكون حجر أسبابتن سيدا جرك بني آدم كان روح ذا يكون حجرته أيا أسبابتن الدون قادر كيسان نظام كإلهي بكون حجرة مركا نظام كإلهي إيش إنه ما قبنا يسوع قدرة إلهي بعالم كان معمول يسلك تبو النبي أيوب سعود قاجيي للكو كعليي لبضل لقوا دحلو ذي بيه كصوبحين بالليل لبا إلو ذبيا إلنا وحال يري كم يلو إلنا وحال يقول يا عبد وما يلي جركيسي وعادي وعبي على الشيء يقولها وحي حنون كجزر دم بناك وكصوبحين وصوك عبي مركلية xaaskiisa magaalada ka timiday way ku wareegtay iyadoo xishoonaysa markaa waxay tiri oday ayuub la oran jiray oo bukaan ahaa oo muddo dhowr iyo 10 sano halka aan la joogay oo maanta aan ka tagay magaaladan ugu maqnaayo aan u shaqo tagay
miyuu dhintay ma dugaag baa qaatay waliba dhallinyarnimadiisiina adigu aad kuugu ekaaye formigiisii baad leedahay markaasuu yidhi ayuubu aniga buu ka yidhi ana ayuub ayuubkii aad kaga tagtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii ducaan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay buu yidhi istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha kal hore waxaan leeyahay bisheedii adduunka corona la sheegay wadannadeenna Soomaaliya oo cabsi baa la yar dareemayay aawa imika muu jiraa dhulkeenna war muu jiraa waxaad ogaataa marka war waxaan adduunka imanayo oo dhan waa xaalaad bay yidhahdeen eeshiyaanku luqada carabiyaduna waa al axwaal ilaahay baa keenaya marka axwaashan sida adiga lagu abuuray ayaa xaalaadkan adduunka bini aadamka la soo darsaayana ilaahay baa abuuray barwaaqada ilaahay baa abuuray abaarta ilaahay baa abuuray xanuunka ilaahay baa keena caafimaadka ilaahay baa keena amniga ilaahay baa haya colaadda ilaahay baa keena mar waxayna soo martay magaaladeenna Hargeysa maanta nabadda aad ku haysataan ree Hargeysa oo ilaahay ugu xamdiyo qul alxamdulillah dhahada mar waxaan imid anigu daanta xagga wixii ka xiga magaaladani hal qof una socon hal qof dameer iyo ay uu dhulka kaga soo baxaysa qalada dhexdooda maantana ilaahay fadliga dhinac walba waa magaalada u ballaaratay madaaristii macaahidii masaajidii ganacsigii da shukriga in la badiyo Soomaa oo ilaahay ku mahadino marka ahwaal hadday timaado maaha wax daa'ima ogow waa waxina soo maray oo tagaya habeenku ku soo maray oo baxaya famahma tala al-laylu fala budda min tulu'i al-fajr famahma tala al-umru fala budda min dukhul al-qabr waligiiba habeenku ha dheeraade waa bari baa ku xiga waligaaba noloshu ha ku dheeraatee geeri baa ku xigta sidaas oo kale weeyaan haddaad barwaaqa maanta aad ku jirto xaaladda barwaaqada ka faa'iideyso oo ilaahay ugu dhawow haddaad abaar iyo saboolnimo iyo faqri ay kula soo darsaan iyada laftigeegu waa xaalad ilaahay baa kugu eegaye ka faa'iideyso ilaahay ugu dhawow culimada islaamka nin kamida ayaa oran jiray laba faras baa adduunka ilaahay noo dhigay buu ilaahay loogu dhawaadaa walla yaabay laba faras magaciisa waxaa la yiraahdaa ash-shukr faraska kalena waxaa la yiraahdaa buu as-sabr adkaysi barwaaqa hadday nala soo daristo waa shukriyeynaa ilaahay baan ugu dhawaanaynaa barwaaqada balaayo iyo dhibaato qaadi kari maynaa hadday nala soo darsaana waa sabraynaa oo diinteenan istiqaamo ku yeelanaynaa iyadana ilaahay baan ugu dhawaanaynaa buu yiri تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة barwaaqada ilaahay ku garo abaartiyo dhibaatada markay kugu dhacdo ilaahay ku garan doona adigana marka bukaan hadda tahay ayuub baa ku daliila sidoo diinta istiqaamada ugu yeeshay istiqaamo ugu yeelo maal qabeen hadda tahayna kam tujar ba adduunka soo marto ehlullaahi wa ilaahay taqaan jazakallahu khayr dhalinyar hadda tahayna dhalinyarnimada ilaahaaga ku garo oo todobada ilaahay u hareynaya waxa kamid ah nabigu yiri shaabun nashaa fi taa'ati allah nin dhalinyaro ah oo dhalinyarnimadiisa ilaahay ku barbaaray cibaadadiisa taa'ada ilaahay ku barbaaray dhalinyarnimaduna waa qayb kamid ah waalida buu rasuulku yiri wala yahay ninka dhalinyaradu markuu dhalinyaro yahay hadii ilaahay uu toosiyo oo ilaahay diinta istiqaamo uu kugu siiyo adduunkan iyo aakhiro wad libaantay ogow fanastaqim ilaahay amarkiisa ku toosnaano insha Allah dhahada meel fiican baan haystaana oo lumi maayo oo dad muslimiin ayaan dhex jooga dad muslimiin ayaan ku dhex noolahay oo lumi maayana ha ku degmin nabiyullaahi aadam alayhi salaam isagaba meesha lagu imtixaamay jannada dhexdeeda ahayd jannada meel ka fiican ma jirtaa halkaas lagu ikhtibaar isaga